dhagax ama cabdikariin sheekh muuse wuxuu ahaa sarkaal xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan wuxuu ka qayb galay difaaca dalka muxuu ahaa in badan oo cadowga uu ka difaacayay waxaa nasiib daraa in la qabtay oo la soo qabtay gaalkacay lagu qabtay hay'ad dawladda ka tirsan soo qabatay ka bacdina xamar la keenay xamarna loo dhiibay markii la keenay muxuu ahaa dawladda Itoobiya oo dalbatay cadaadisna ku saartay dawladda in loo dhiibo taasi marka waxay noqotay nasiib daro iyo khalad weyn oo dhacay oo khatar ah oo ku ah dalka iyo dadkaba muxuu ahaa wax la qaadi waayay haddaan baarlamaanka nahay marka waajibaadka naga saaran arrintan waxa weeye inaan wax ka qabanno arrintaas oo aanu daba gallo cidda ka dambeysay hawshaas dembigaas faldambiyeedkaas weyn inaanu ogaano waxa sharcigu ka qabana iyo xeerka dawladdu uu ka qabana aan ku qaadno khaladka dawladdu gashay ama hay'adda dawladda ka tirsan ay galeen waxaa lagu daynayaa in la maro nidaamka dawladda kaas baanuna wadnaa hadday khiyaano qaran noqoto iyo hadday muxuu ahaa faldambiyeed dad gaar ah galeen noqdaan waxaa kale oo dembiga qayb weyn ku leh dawladda Itoobiya oo ku cadaadisay dawladda Soomaaliya ama hay'ado ka tirsan dawladda Soomaaliya in la dhiibo ninkaas oo iyada loo dhiibo si ay u xabisto u ciqaabto taa iyada ana waajibaadkeeda ka mid tahay inaanu iyadana ifinno daba gallo aanu muxuu ahaa ujeedadeeda ugu weyn oo ah siday awalba yeeli jirtay 27 sano inay shacbiga Soomaaliyeed iyo dawladda iska hor keento iyo shacbiga laftiisana iska hor keento ciidamadooda in la ka saaro gebigoodaba inay dalka baxaan waxaan kaloo rabnaa cabdikariin inay soo celiso hadday daris wanaag rabto haddii ra'iisul wasaarahoodu warku sheegay run yahay ha ka rumeeyeen ha soo celiyeen markaas baa normal wax walba noqon kara 2 bilood 3 bilood ka hor bay ahayd isla markiina wuu buriyay wajid dadka Soomaaliyeed waa arkaan wax maahan qarsoon maaha meediyahay ku jirtaa warbaahinta ku jirtaa in lagu la xisaabtamo way maalin walba inay annaga isku kaaya dirto annagu aqliga maleyn waa soo jeednaa hadda midnimada Soomaaliyeed waa bilaabatay waxay rabtaa marka oo ka dabaaqaysay 8 February sanadkan arrintii dhacday oo ahayd doorashadii madaxweynaha iyo dadka Soomaaliyeed oo israacay oo u riyaaqay dawladda dhalatay inay burburisay rabtaa kana yeelmeen anagu wixii dawladda ka khaldamay waanu saxaynaa ballan weeye ma aqbalayno in qof Soomaaliya oo wadaniya inta la iska soo qabsado la dhiibo wadaniyadii laga baxo ma aqbalayno